الكاذبون على المدى حذاق 50 عاما والنضال نفاق 50. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta xaggan waxaan nagu doobayaa insha Allah software la yiraahdo SAS Planet. software-kan oo la yiraahdo sida xagga sare ka heshiinba SAS Planet waxa weeyaan waa software aad ka download gareysan kartid amba aad ka heli kartid image raster image ah oo GIS loo isticmaalo iyadoona aan kaaga baahnayn in aad ku waxaysid georeference inaad siisid iyadoo kaaga baahnayn. Marka insha Allah waxaan guda galaynaa software-kan qaabka loo download gareysto, qaabka loo loo isticmaalo insha Allah. Marka waxaan galay waliba software-kan wuxuu software-da kale kaga fiican yahay waxa uu leeyahay oo dooran kartaa satellite kala duwan. Marka maadaama lagu helo image-yada raster image-ka lacago lagu iibiyo oo ay ku kala iibiyaan shirkado waaweyn oo satellite leh ay ku iibiyaan. Marka haddaba waxay sameeyeen xaggan software bilaash ah oo satellite image ku siin kara kadibna walibana oo ku qoratahay xagga waa kii Google, Yandex baa ka heli karaysa, Nokia, Cosmo, iyo ilaa intaan badan xataa Esri baa ku jirta. kuwaas oo dhan baad ka heli karaysaa image-yadooda. Marka walibana wuxuu ku sii fiican yahay waa haddii la sii zoom gareeyo waxaad arkaysaa meelihii si fiican baa aqalada u arkaysaa. si fiican baa aqalada u arkaysaa. Iminka insha Allah waxaan sameynaynaa in aan download gareysano sawirkan. Markaad sawirkan download gareynaysid halkan aad taabanaysaa kadib tick ayaad saaraysaa xaggan aad ka bilaabaysaa. sidaas aad u calaamadaynaysaa. markaad sidaa tigta u saartid meesha aad rabtid kadib waxaa kuu soo baxaya selection manager baa kuu soo baxaya. kadib waxaad dooranaysaa inta uu yahay amba intaad zoom inaad ka dhigata doonaysid. marka aanu ahaan 20 ayaan zoomkiina ka dhigta rabaa. kadib waxaad dooranaysaa halkan Google satellite Google Maps. kadibna start baa oranaysaa. start markaad tiraadid ilaa aduu waqti buu qaadanayaa. marka waa 8.7 MB insha Allah waqtigu isku soo dhamaanayo ayaan sugnaa insha Allah. waka downloadkii uu dhamaaday iminka. marka kit waan iska oranayna kadib halkan ma ku laameynaa. kadib waxaan oranaynaa last selection baan oranaynaa. markii hore downloadkan taabanay ahayd iminka switch-kan taabanayna. switch-ka markaan taabano halkan waxaa ka dooranaysaa ma JPG baa ka dhiganaysaa ama PNG baa ka dhiganaysaa ama GeoTIFF baa ka dhiganaysaa. anuu GeoTIFF baan ka dhiganayaa. kadib xaggana tagi marka waxaad dooran iminka meesha aad ku save gareysanaysid ayaa dooran. waxaan sameynaa GeoTIFF xaggana ku dhex qoran xaggana ku shuban image GeoTIFF. okay baan iska odhan. halkan zoomta waad dooran 20 baad dooran. halkan projectionka dooran. marka projectionkii caalamiga geography projection baan dooran 43 kan dooran. kadibna start baan odhan. okay iminka saad aragtiin ba startiga uu buuxsanayaa. waa ka u dhamaan startiga. iminka hadda saad arkaysiin waan dhamaynay. marka iminka waxaan eegaynaa meeshu noogu soo dhacay ayaan u eegaynaa. okay waxaan galaynaa arkama baan soo kacsanaynaa. kadib waxaan soo qaadanaynaa waa ka halkan noogu dhacay. saad arkaysiin ba sawirkii waa ka uu noo soo qaadnay. marka waxaan eegaynaa property-giisa.
propertigiisa waa ka source baa tagi marka muxuu ku sheegay xakan intuu yahay intuu maxaan ku dhaday intuu mega waqti uu yahay reference special reference kiisa waxaasoo dhan ku sheegaya okay marka zoom ayaan odhanaynaa wakaas haddaba sawirka saasa loo soo qaataa wakaas xagga hoose linkiga ayaan iisoo dhigay videoga halkaad ka download garaysan kartiin softwareka markaas khayr ayaan rajeynayaa videogan haddii aad ka hesheen like saar share garee subscribe na dheh asxaabtaadan la wadaag wixii macluumaadan faahfaahin aad naga rabtiinna waxaad nagula soo xiriiri kartaa insha Allah gmailkeena nagula soo xiriiri kartaa khayr baan rajeynaa maalin wanaagsan